أنا كمان أكسر قريب ماشي وماشي عيدا مدى فيتناميز كسكو قرين شرن أنت مرايكا كديلان لق أي حاجة نسكو قرين شرن واك قد كان يار كونتينيو هوس وسي قالنا 10 متر أنتوا ليه في ريا ودتوا القضية لعبوا قولي كتم كيلومتر بعد قفك دول مريا هدوء تابطبا ويقرحي جرت يا فيتناميز كم مرايكا كصحن وقلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دو جنك جدي سهن حلقة وماشي كسر بحر عيدا مدى فيتناميز كا كلفو كدقاق فيتناميز كما كدت كدونيني ديلان قلت كحاجة كسر بحر جرن لا ما درامي حتى ماركته أكن كبعد حاجة نقف كقلية aad u yartahay so markuu mareykanka ciidanka mareykanka meelaha wareegaya ma garatay qofka xaggan ka soo baxa dhash baa meeshaas ku laabanaya saw qaransa su'aasha waxa weeye saasa ku yar qaransa habkii u dagaalami jireen waxay ahaan jirtay hab ku dhufo ka dhaqaaqa okay saasna wax xiriyo marka waa inaad gashaa ana jaabiniya tijaabi korna saasa loo qadaya marka imika ma arkaysin inaan la arkayn qofkii inuu meesha waxaad moodaysaa meel siman baad moodaysaa waa kan godki hana tusno godkan tulege godka gudaha aad buu yar yahay soo qofkii qoriga iyo hubka hoos uu ka keenaya maragta godka la xagan sii jira soo baxo labada gacmood qofka markuu saa soo baxo xabadana xagaas dhag dhag ugu laabanaya ka bacdi xaggan aanu joognaa waxa weeye waa shooting range-kii weeyaan meesha marka qorigan AK47ka ayay ku dagaalami jireen Vietnamese-ku marka bal annaga iyo saaxiibkii geedisahan baa isku baxaynaa keena shiish wanaagsan okay أنا كمان أكسر قريب والله قبل سهل أي قبل ذي ما قال حاجة كنت توبرتي هلا بارا taangigan aad aragtiin waxa weeyaan waa M41 oo Mareykan baa sameeyay taangigan waxa ku qaraxday miina ku qaraxday 1970kii marka taangigan waxa lagu talagalay in lagu baabiyo levelka sare ee tunnelka ma aragtay systemka tunnelka in lagu baabiyo la rabay laakiin way u suurtagal weeday Mareykankii waxa la rabay Vietnam in laba loo qabiyo waqooyi iyo koonfur 20 sano waxa socday dagaal sokeeye oo ah sideed kamid waxa joogay Mareykanka markay saareen wali uu socday dagaalka ka bacdi waqooyiga ku guuleystay dalkan ka bacdina wuxuu ka dhigay hal dal ilaa koonfurta wuxuu ku rogay nidaamka shuuciga Mustafa kaba maxaa weeyaan كمان وحبيان تاير laga sameeyo تاير laga sameeyaa waxa xiray jiray ciidamada Vietnamese-ka dagaalka intuu socday kabahan waxa loo xirtaa gadaal marka si meesha u socotid maayna meel kale oo ku aadiyo jahwareeriyaan ciidamada markay ka jahwareerin jiray si fiican waxa laga sameeyaa marka waxa laga sameeyay tire iyo tube laga sameeyay waa kaba adag waa marka aan fahmi karin ciidamadii Mareykanka suxna loo jabiyay هاي قضاء هذا الله حدو برتن الله حدو waxa la mooday dhinaca kale aadisa wala jawaarin jiray ama damanka la geyn jiray si fiican xaggani waxa weeyaan waa goobtii lagu sameeyay hubka ay ku sameeyeen Vietnamese weeyaan xaggan oo kale waxaad arkaysaa gantaalkan aad arkaysaa marka diyaaradaha Mareykanku markay gantaalada soo ridaan kuwa aan qarxin baa laga sameeyaa hub bay ka sameeyaan marka wax walba way ka faa'iideysanaysaa kana waxa weeyaan waxa weeyaan waa gantaaladii oo aan waxba noqon weeyaan 250 kilogram weeyaan marka waxa laga sameeyay borderka ku jira TNT-ga ayay uga baahnaayeen sidii ay uga sameeyaan miinooyin markaas aad u jeedin xagan miinooyinka aad arkaysaan waxa weeyaan waa miinooyinka qoriga B14ka laga riday weeyaan marka short distance maaha long distance bay tagayaan miinooyinka waa dabin marka waxa weeyaan kan waa dabin weeyaan marka dhulka hoostiisa ayaa la gelin jiray ka bacdi qofka dul maraya haduu uu taabtaba way qarxi jirtay يا فيتناميز كم Mareykanka saxan oo galan si xun bay u galan si xun dagaalkan dagaal caadi ma ahayn waxa ku dhimatay qiyaasaan 4 milyan oo qof oo Vietnamese 1 milyan oo ciidana iyo 3 milyan oo shacab oo civilian ba ku dhintay ciidamada Mareykanka imsa ku dhintay ciidamada waxa ku dhintay ilaa 850 ayaa ku dhintay ciidanka Mareykanka ويريين لكن Vietnamese aad bay u dhintay 2 مليون 4 مليون 20 sano socday
civil war ka dagaal waa dagaal annaga soo marnay mana Soomaaliya leeyahay waa dagaal sokeeye waa dagaal sokeeye way labaatan sano waqooyi iyo koonfur buu dhaxay gambas ka siiyeen wallahi laakiin hadda way heshiiyeen meeshan goob dagaal weeye goob lagu kala baxay weeye meesha waxaan joognaa dabinkii weeyaan marka ciidamada Mareykanku iyagoo iska socdaay meelahan ku soo dhici jireen sidaad u jeedaan waxa weeyaan qofku markuu ku dhaco markaysa jirkiisa daloolo midhan buu u gelinayaa moogti marka qofkiisaas uu ku dhimanayaaba kan aad arkaysiina waxa weeyaan waa mid warwareegaya weeyaan warwareegaya markuu qofku galo kama soo bixi karo ilaa uu jirkiisu yaani uu dalool walba galo hadhowna wuxuu ku dhacaya xagga hoose kana waxa weeyaan waa sida waxa weeyaan original position kiisu saasuu ahaa يعني sidaas ayuu ahaa original position kiisu markuu qofku galo saas ugu dhici jiray jirkiisa oo dhan wada dalool buu wada noqon jiray hadaba ka ugu daran waa ka weeyaan sida afka iyo xaaskaad moodaaba ma arkaysa afki xaas baa moodaa markuu qofku galo saas ugu dhigaya xaqan waxa weeyaan waa qaybta waqooyiga ay ku sugnaayeen ciidanka Viet Congo meelaha dhibcaha buluuguna waxa weeyaan waa xaqii xerada ay ku lahaayeen ciidanka Mareykanku qaybta hoose maabkuna waxa weeyaan waa ciidankii South Vietnam ee la jiray Mareykanka xaqan aad u jeedin waa tunnelkii weeyaan marka qayb waxay kugu tuuraysaa webiga qaybna waxa weeyaan qaybtii ay askartu ku nasanayeen weeyaan xaqan marka ciidamadu ka soo baxaan bartan dhufayska ay ciidamadu tagi jireen markay tagaan bartan ay ka dagaalami jireen ciidamadu oo dhufays u ahayd meeshan dhufayska masaafadeedu aad bay u dheertay ilaa dhowr kilomitir weeyaan marka xaqan ay ka dagaalami jireen ciidanku ciidamada marka dagaalka maalintii dhimayaan waxay iman jireen xaqan ku nasan jireen soo meesha ku nasanayeen weeyaan aga aragtan caagadiisa biyaha marka ciidamada waxaa 70% waa rag laakiin dumarna ku jiraan waa kan ma garatay taladan dumarka ku xusiyaan marka 30% dagaalka Vietnam iyo Mareykanka dumar ayaa ka qayb galay how are you good good yeah ninkan wada doona godka isticmaal jiray xilliga dagaalkan galin hadda continue intuu leega fiiriya godadku wuxuu qodayay 250 kilomitir dhan wait kolbayna sii socno godku sii yaraanay hoos u sii galna 10 mitir hadda marka waxaa sii aadaynaa qaybta isbitaalka u ahayd godka gudihiisa let's go hadda waxaa joognaa qaybta isbitaalka ay ku daaweynayaan ciidanka markay soo dhaawacmaan godkan hoostiisa ciidamada halkan markii lagu soo dhaawaco bannaankay ka keenaan meelahaasay ka soo bixinayaan sariirtan ay keenayaan ay ku daaweynayaan marka qaybtan waxay u yaqaaniin qaybta isbitaalka oo dadka ay ku daaweynayaan marka dhulka hoostiisa waa cidna ma ogaa karto ciidamada Mareykanka iyo cadowga meesha ay joogaan ciidamada Vietnamese waa ku maasay daawashadiina ka godkan ka soo baxnay haya maxay dhaysaa hal yelo wallahi godkan 250 kilomitir dhulka hoostiisa Vietnamese way dadaaleen ciidanku meeshan ku dhufan ma saarna sayr wallahi godka ma gelin godka ma jiraan laano aad buu u leeyahay godka laakiin de tunnelkan waxa weeye 250 kilomitir dhererkiisu haddii de la soo anu ma garanaysaan ku qiyaasi karo dhul ahaan waddankeeni laakiin aad buu dheeriyay waa iska fahmaysiin moogta dadka inta qoday hal faa'iidaan ka faa'iiday Vietnam dagaalka dadka lama qaybin dadku isku mid North Korea South Korea oo kale uma kala qaybin marka Mareykanka ku falgaro reer galbeedka ku falgaro waddanka waa communist weeyaan 100% communist weeyaan waddankan waa shuuci wali waa shuuci weeyaan hal xisbi ka taliya taa waxba kama sheekano laakiin reer galbeedka waxa arrinka meel baa la iska dhigay dad badanna dagaalkan sida Maxamed Ali oo kale ma taqaana waa nin caan ah uu diiday inuu dagaalkan ka qayb galo taariikhda taalayna u dhisaan bahed Maxamed Ali kala aad buu taageeraan Maxamed Ali okay
وكما ستي دawashadiina hanaga ilmaamina subscribe like comment ونoo muuqaalka soo socda share gareeya videogan like subscribe waa inoo fiidooga kale